oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeeshay Dr. Adnaan Cabdullaahi Xuseen. Doctorka waxaan weydiin doonaa dhibaatooyinka iyo weliba faa'iidooyinka uu leeyahay kiniinka Big Power-ka ee hablaha Soomaaliyeed ee u isticmaalaan inay isku cayiliyaan ama isku buuriyaan. dhawaanahanba waxaa soo badanaya hablaha isticmaala kiniinka Big Power-ka iyo midka kale ee Soomaalida ay u yaqaanaan awbriiska tore ee ku soo dhawow barnaamijka iyo weliba TV-ga maanta. Dhawahay barnaamijka aad iyo aad aan u mahadsantahay walaashay hodan sida quruxda badan ee maanta ay uga casuumtay barnaamijka. Su'aasha ugu horeysa ee aan rabo doctor inaan ku weydiiyo muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay isticmaalka kiniinyaha hablaha Soomaaliyeed ee u isticmaalaan inay isku cayiliyaan ama ay isku buuriyaan. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kiniinkaas marka hore muxuu ahaa muxuusa Soomaalida sida qaldan ay u isticmaalayaan marka loo eego dhanka hablaha. marka waxaan rabnaa inaad bulshada Soomaaliyeed aad u sharaxdo dhibaatooyinka uu leeyahay kiniinkaas. ugu horeyn marka laga hadlayo kiniiniga Big Power-ka waa magac oo iska mark name ah ama magac oo ganacsi waaye. laakiin kiniiniga caadiyan waa multivitamin waaye oo kiniini oo ku jiraan vitamino kala duwan ee u badan yihiin nooca B complex vitamins loo yaqaan. waxaa dheeraad u ah kiniiniga uu leeyahay maaddo kale oo la yiraahdo cyproheptadine ku jirto oo appetite stimulant ah qofka yani cuntada ay u fureysaa. waxay kale leedahay hurdana way leedahay oo qofka in uu hurdoodo ay leedahay. marka qofka hadii uu nasto jirkiisa oo appetite stimulation lagu sameeyo waxa dhacayo cunto badan qofka inuu qaato sidaas ayaa laga yaabaa marka inuu ku cayilo. laakiin caadiyan Big Power-ka wax lagu cayilo ma ahan. runtii marka aad dhahno vitamins ku jiraan vitaminada sida caadiga ah waxa ka helnaa cuntooyinka aan qaadano oo quraac iyo qado iyo casho cuntooyinka aan cunno dhammaan vitamina ku jiraan. vitaminada habba ku kala badnaadaan waxaa kaloo jiro vitamino ay u kala badan yihiin ay u baahan yihiin macnaha dadka qaarkood sida hooyada uurka leh oo kale caruurta oo kale dadka waaweyn oo kale dadka xanuunada qaar qabo oo kale. laakiin normally vitamin kugu filan adoo ka heli jiray cuntada caadiga ah markay aad qaadatid vitamin kale oo dheeraad ah waxa dhici karto wax la yiraahdo vitamin overdose ama vitamin toxicity wax la yiraahdo oo ah xanuuna ka dhalan karaan. hadii aan leeyahay vitamin B1 B2 B6 B12 nooca doon ha ahaado. marka runtii ma wanaagsano in loo qaato iyadoona jirka qofka u baahneen oo macnaha asan dhakhtar u qorin oo kale ama aysan jirin sabab gaar ah oo qofkaas daawo ahaan ama baahi kale oo gaar oo jirkiisa uu ka maqan yahay oo kale iyadoo loo qorin in la qaato sax ma ahan. aad ma hasantaa doctor ma rajeynaya hablo badan oo inkastoo ragga xataa la dhaho waa isticmaalaan inay jawaabtaasi ay anfacday. aadan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga aad siisay. marka la dhaho iscayilanta dabcan waan ka soo hadlay faa'iidooyinka uu leeyahay kiniinkaas aan rabnaa markale inaan noo sharaxo. faa'iidooyinka marka laga hadlayo runtii maanta hadii faa'iidooyin macaan oo wanaagsan oo qurux badan ah halkan ku sheegno gabdho badan oo hadda qaadan jireen ay wax u noqonaysaa dhiirigelin kuwa hore aanan u qaadan jirin inay bilaabaan laga yaabaa. runtii kiniinigan ma recommend gareynayno ama ma ku talinayno in loo qaato yani faa'iido ahaan sababtoo ah normally cuntooyinka aan cunno waa quraac waa qado waa casho. vitaminada waxay ku badan yihiin caadiyan cuntooyinka cagaarka ah iyo cuntooyinka dhulka ka soo baxo oo badana dabiiciga ah. marka saabtihin waa ku quraacana waa ku qadeynaa waa ku casheynaa. marka tala ahaan waxa qaba kiniiniga oo Big Power ha ahaado ama multivitamin kala ahaado ama nooc doona ha ahaado qofkii inuu dhakhtar ka tago ma u baahan yahay. hadduu u baahan yahay inuu qaato hadduusan u baahnayn laakiin xilli uu u baahan yahay gaari doonaa ha iska soo. maxaa yeelay qofka waxaa jira xanuuno qaar ah sidoo kale hooyada hadii uur leedahay oo kale vitaminaad gaar ah loo baahan yahay jirkeeda ka maqan oo si cunugeeda caloosheeda ku jiro iyadaba loo badbaadiyo. haddii qofka uu da' noqdo kale vitaminaad qaar ah jirkiisa ku yaraanaya. qofka xanuuno qaar hadii ay ku dhacaan oo kale waxa ku dhici karo vitaminaad inuu lumiyo oo ama saxarada ku lumiyo ama dhinac kale ku lumiyo. taasna waxay keeni kartaa inuu jirkiisa u baahan yahay vitaminaadkaas inuu qaato. marka caadiyan vitaminaad waa u baahannahay jirkeena si shaqooyinka uu u qabto si dheefshiid uu sameeyo si ma arkino oxygen-ka iyo wasaqda kala bedelkeeda u sameeyo yani dhammaan shaqooyinka jirka gudihiisa ka socdo way u baahan yihiin vitaminaad.
marka laakiin ma ku talinaya in la iska qaato big power mar walba oo iyaduna dhakhtar kuu qorin. waxaa jiro kiniinkan oo la mataana oo badanaa habluhu ay ku darsadaan oo la yiraahdo oo bariis Soomaalida u taqaana laga yaabee dhanka caafimaadka magac kale loo yaqaano. waxaan rabaa kiniinkaas labada kiniin markii la isku daro dabcan qalad baa ka imaanaya qaladkaas habluhu isticmaalayaan inay labada kiniin marka isku daraan kadib ay fitamiinka helayaan kadibna ay ku buuranayaan bal iyadana inaad noo sharaxdo. runtii waa su'aal muhiim ah oo idin u baahan in laga hadlo. yacni kiniinigan aw bariiska la yiraahdo maadada ku jirto waxa waaye corticosteroid la ama steroid wuxuuna u badan yahay prednisolone. aw bariiska badanaa shushubu ku yimaada way yaqaaniin dumarka farmashiyada la tagaa aw bariis sac baa la soo qaataa soo maahan. marka waxaa jirto aw bariiska maada la yiraahdo prednisolone waaye. prednisolone-kana caadiyan jirkeena laga soo saaraa qanjir ku dul yaalo kilida. kiniiniga markii aad u qaadatid si banaanka ah runtii qanjirkaaga oo shaqayn lahaa oo istaajina macnaha ma loo baahno in la soo saaro corticosteroid oo leeyahay. waxaa laga raadiyaa cayil iyo faa'iido laakiin dhibaato uu keeno kiniinigaas ayuu ku yimaadaa cayilka ee ma ahan faa'iido laga dhaxlo kiniiniga. maxaa yeelay qofka markuu corticosteroid jirkiisa ku bato corticosteroidka waxaa la yiraahdaa glucogenic hormonal laha ama hormoon oo sokorta isticmaalkeeda badiyo qofka inuu buurto way fududaanaysaa laakiin waa problem sidaas si lamid ah wuxuu leeyahay xanuuno kale qofka inuu warwareerka dareemo inuu wadna garaac dareemo sababtoo ah dhammaan metabolismka jirka dhacay ayuu badinayaa. taas runtii faa'iido ma ahan ee waa halis. qofka haddii uu daa'imo inuu prednisolone in badan qaato ama awbariiska in badan qaatana waxaa dhici karo qanjirkiisa inuu shaqayn waayo. haddii kiniinigaas muddo yar uu waayo oo hal mar joojiyo waxaa ku dhacaya wax la yiraahdo adrenal crisis oo ah qanjirkii kilida dusheeda ku yaala inuu soo saari waayo hormoonkan ama dhiicaankan inuu soo saari waayo taasna hal mar jirkiisa oo halis koomana loo galaa xaqiiqatan. waa aragnaa isbitaalada gabdho badan oo aad u isticmaali jira awbariiska oo yimaado iyagoo ma arkino xaaladooda aad u daran tahay waa la keenaa. runtii waxaan dhihi lahayn awbariis ha laga fogaado hana la joojiyo. habluhu markay labada kiniino isticmaalaan waxaa jirkooda ka muuqda cayil marka waxaan rabaa inaad bulshada u ifiso waxa muuqdo cayil miya mise waa barar. okay يا ربي عيل ولا نعجر مكتب حواي جيم ولا نعجر هذا لك عيل كيا ولا هذينا runtii marka laga hadlaayo cayilka ka muuqda dadka isticmaalo prednisolone-ka iyo big power-ka dad isku qaadanayo sidaa sheegna big power-ku waa vitaminaad jirkaaga hadduu ka batana dhib keeni karo laakiin awbariiska waa waxa keeno qofka inuu bararo mana ahan barar caafimaad leh ama cayil caafimaad leh ma ahan ee waxa waaye wax loo yaqaano xanuun ama cudur oo qofka ku dhaco marka ugu dambayso oo la yiraahdo Cushing syndrome. Cushing syndrome-ka calaamadihiisa marka waxaa ka mid ah qofka inuu caloosha u cayilo inuu qoor weyn oo yeeshto buffalo hump Allah ama qoor oo jeer oo kala ana gabadha inay qoorta ka weynaato lugaha way yar yihiin haddii aad u fiirsataan dadka aad ku isticmaalo calool buuran oo yani central obesity badan dhanka cajirada iyo qaybta dambe oo baaga ah ee qofka u bararaysa waxaa dheeraad ah waxaa ka soo baxaya jirkeeda waxyaabaha qofka markuu caato loo yaqaano stria dhahana dibaaxiyo ay u yaqaaniin Soomaalida waxyaabahaas qofka jirkooda soo waa caan gabar walba isticmaasho way taqaana gabar walba saaxiibteedna way ku aragtaa wax la wada ogyahay macna marka ma ahan cayil oo caafimaad lama ahan ee waa cayil ama barar oo cudur keenay waa macna way ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kiniinka big power-ka ama midka awbariiska asliyan maxaa loo isticmaalaa. okay waa laba topic kale yihiin marka laga hadlayo kiniiniga big power-ka sida ay sheegay waa company name waa vitaminaad waxaana loo isticmaalaa cid walba oo vitaminaadkaas jirkeeda u keenayeen mararka qaar waxaa kale loo isticmaalaa qofka cuntada ka xiran tahay si appetite-keeda loo furo ee cunto fiican u qaadato kaas waa ka midka labaad oo awbariiska waxaa loo isticmaalaa xanuuno kala duwan ay ka mid tahay xasaasiyadda ay ka mid tahay caabuqa ku dhaco sanbabada kale iyo naqaska iyo wax la mid ah ay ka mid tahay xanuuno qaar oo ku dhacaan maskaxda ay ka mid tahay xanuuno qaar oo ku dhaco dheefshiidka iyada iyo kiniinyaal kale la isticmaalaa runtii baabkan aan u isticmaalo dhan maba soo galaya macnaha marka insha Allah in la dhaafi doona rajeynaa aadan kaaga mahad celinayo doctor waqtigaaga qaaliga ah inoo hortay dabcan
guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wareysigii gaarka ah ee aan la yeeshay Dr. Cadnaan Cabdullaahi Xuseen anigoo hodan maxamed jimcaale ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay waa farsamadii iyo kaamiradii Cabdiraxmaan Tahliil inta barnaamijka kan xig ku kulmi doono waa bahda maanta TV oo idin la sidaayo amaana